عشر شرايدو ما تسيو ذا شرا حرون تمام كقبل كسرنا يقول قبتين قدوميها قبل كسرنا محمد أحمد عالم تيم بري ماير كتج مدى عرقابة إسماعيل حاج نور أو كميدا مدحدا قدي دا كورتقا حنون كسف بريك كوفي 19 قبل كسرنا يا فاهين كبحية داق راشين وكسو قادي مدحدا قدي دا هير قران معنا ديضا سيدة راشين كوردان صدح كوني سيديد بقول وقويسو لوغو تلقى ريدا ديوغا إسامين تايكوية لطي حنون كسف بريك كورونا فايروس أي واحد شركة سي شرايد كوهلين يا فاهين كمدحتو يدا سومالا محمود ورسلام الجامعة يولي وزير ku-xigeenka wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka Somaliland Sahal Maxamed Jaamac oo muddooyinkii u dambeeyay gobolka Sanaag uu joogay arrimo shaqo iyo wacyigelinta ku aadan xanuunka fadaasi ayaa guud ahaanba bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay ka digtoonaadaan xanuunkaasi isla markaana ay qaataan awaamirta madaxda guddiga heer qaran iyo waliba guddiga heer gobol ee xanuunkaasi ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa sidata waxaanu maanta halkan shirkan saad ugu qabanay inaanu ku baahino laba qodob mid hore uu noogu soo wacyigelin lahaa iyo mid deeqna soo gaadhay waxaana soo gaadhay kaalmadii ayna soo gaarsiisay guddida qaranka ee COVID-19 ama coronavirus guddidiisa ka hortagga raashin dhan 3,800 oo qoys loogu talagalay raashinkaas oo la gaarsiinayo dadkii ay shaqadoodii uu ka waxyeeleeyay karantiinkii dadka la saaray amba shaqooyinkii la kala fasaxay sida macallimiintii ka hawlgeli jirtay shaqaalihii ka hawlgeli goobaha waxbarashada kale shaqaalihii kale iyana saas leeg dhibaatada ugu dhacday naafadii iyo danyarta intaba raashinkaas waxa loogu talagalay magaalada Ceerigaabo oo kaliya insha Allah waxaan jecelahay anana sida ugu quruxda badan inaan ugu qaybino dadka loogu talagalay u gaarsiino waxa noo raaca maamaha waxay tiraahdaa shifo waana laga quusay malaa soo shifo leeyahay la waaniyo dadkeenni war isbasriya un baa la leeyahay cudurkan waxba inay yeeli maayo haddana isbasrinee laakiin isbasriyadu waxaad moodaa dadka inay ka dhigaadeegayaan shalay ciidan iyo gaaraan diray waliba ganaaxna waanu saaray aan leenahay ciddii ku dhaqmi weyda ama wiirtii la faray hala ganaaxo qofka ganaaga bixiyana xadhka loogu bedelo waanu dadaalinaa dadka waxaan ka codsanaynaa wardadaalka anagu nafteedu u dadaalmayna tiinaanu dadaalayna nala garataan oo isu ururkan iyo turubkan iyo tubnadan iyo waxana ay sugu imanaysan yareysaan ilaahay hay naga badbaadiyo waa masaayib adduunyada oo dhan haysata mid noo gaar maaha sidaasaynu ku jiraa itaal kasta aynu lahaan ilaahay bayna la shanay dadka ugu ladan waxa la inooga baahan yahay taxadir afkeena xidha kala fogaada qofkii wax qaba soo sheega idinku haysa sareynina cidii wax qabta gaar isaga saara raashinka tiradiisa uu sheegay barasaabku ayaa guddida qaranka COVID-19 ay u soo ogolaatay magaalada madaxda gobolka Sanaag Ceerigaabo waa ugu mahadnaqaynaa waxaan u qaybin doonaa si loogu talagalay dadkii xaq u lahaana waa siinayna insha Allah taala dadka reer Ceerigaabo waxaan u sheegaynaa in badan baynu gaari saaray mikrofoono telefishinada dhan baa daawataan habeen walba dhag uma dhigaysaan waxaan jiraan ma aaminsanidin xanuunkiina wuu jiraa mawd nina ka carar maayo maalinta nin walba dhimanaya laakiin in la dadaalo oo lagu dadaalo in xanuunkaasi laga nabad galo waa arin sharci weey diintuna waa gashay arinta dhiguma idin dhigin waxaan idin leenahay wax bedela hadaa bedel weydaan waa dhibaato idinku inoo soo siideen waxaana sidoo kale halkaasi ka hadlay afhayeenka madaxtooyada
madaxtooyada Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka Somaliland Saal Maxamed Jaamac ayaa dhinacooda ku dheeraaday siyaasadda waxqabad iyo qorshayaasha horumarineed uga yaala aafadaasi ayaa waxa uu bulshada ay ugu baaqeen inay ka digtoonaadaan xanuunkaasi buuxda ugu jirtay in laga hortago xanuunka oo lala dagaalamo haatan oo dalkeenu ka mid yahay meelaha uu xanuunku soo gaaray ee uu ku baahayo waxaynu ilaahay ka rajaynaynaa in ilaahayna baalmariyo oo ina dhaafiyo gudida heer qaran ee ka hortaga cudurka COVID-19 iyo la dagaalanku waxay u qoondeeyeen gobolada dalka Jamhuuriyadda Somaliland inay gaarsiiyaan deeqo kala duwan taasi oo loogu talagalay in lagu kabo dadkii uu shaqadooda iyo hawl maalmeedkooda uu saameynta ku yeeshay maadaama aynu xidhnay goobihii waxbarashada goobihii la isugu yimaanayay iyo goobihii ay ka socday isu socodka iyo ganacsigu taa bedelkeedana xukuumaddu iyadoo muujinaysa doorkeeda iyo dadaalka ay dadka la garab galayso waxa loo qoondeeyay magaalada Ceergaabe xarunta gobolka Sanaag in la soo gaarsiiyo 3800 oo qoys kuwaas oo wax lama wada gaarsiin karo dadka ilaahay unbaa wax gaarsiin kara laakiin se dadkii uu saameynta ku yeeshay gaarka waxyaalo badan baa dadku hadda siyaasadda ka baaraano inay ama xukuumadda ama guddiga ku cambaarayaan waxa la reer Somaliland maanta asmaca ma dhacday adduunka oo dhan waa timeel lagu soo wada jeesanayay ee tii la isku cambaaraynayay ama madax lagu ceebeysanayay oo lagu caayay tani maaha ninkii waxayo talo iyo tusaale dadku kaga baahan yahay iyo waxqabad hada adduun ku beeri karto laakiin talitii siyaasadda laga baaray maaha tii la iska toosinayay maaha tani waa cudur caalamka ku habsaday in meel looga soo wada jeeso difaac in wada xirano mucaarad iyo muxaafid baba loo baahan yahay aan madaxda hawshan ku jirta aan dacalka la qabsan lana cambaarayn ayaduna ma banaana waxaan u baahanahay in dadku ay qaataan waxa la farayo oo ah inay kala fogaadaan inay nadaafadda ilaaliyaan diinteenu waa qabtaa in qofku uu taxadaro oo wixii dib u keenaya uu iska ilaaliyo waxaan leenahay bulshada reer Somaliland walaalayaal wacyigelinta qaata waxa ummaddu leedin sheegay qaata wax leedin kaga doonaya ma jirto baalkii waa yimi Ali Aadan Daahir telefishinka caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergabo